dekada magaalada Berbera waxay sanadkii la soo dhaafay kamid ahayd meelaha mandaqada ugu hadalhaynta badan kadib markii ay heshiis maalgelineed wada saxiixdeen Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World. heshiiskaasi ayaa keenay in dekada Berbera lagu wareejiyo shirkadda DP World taasoo sanadkii la soo dhaafay gacanta ku haysay. heshiiskaasi ayaa dhigayay in $442 milyan oo dollar lagu maalgeliyo balaadhinta dekada iyo sidoo kale jidka isku xidha Berbera iyo Ethiopia. walow ay jiraan dhaliilo heshiiskan la xidhiidha oo ka imanayay mucaaradka Somaliland, haddana sanad kadib waxaa magaalada Berbera toddobaadkan lagu qabtay munaasabad lagu shaaciyay hirgelinta wejiga koobaad ee heshiiska maalgashi kaasoo balaadhinta dekada Berbera. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici iyo mas'uuliyiinta DP World qaarkood ayaa dhagax dhigay. geesta kale magaalada Hargeysa ayaa iyana lagu qabtay munaasabad kale oo ay Somaliland, DP World iyo shirkadda balaadhinta dekada ku guuleysatay sida la sheegay ay heshiiska hirgelinta ku kala saxiixdeen. munaasabadaasi oo madaxweyne Biixi iyo gudoomiyaha shirkadda DP World Suldaan Axmed bin Suleymaan ay ka hadleen waxay tilmaameen muhiimadda heshiiskan. munaasabadaasi kadib ayaa wada jir warbaahin ay VOA ka mid tahay ula hadleen madaxweyne Biixi iyo gudoomiyaha DP World, waxaana inta badan ka jawaabeen weydiimo la xidhiidha mashruucan oo ay sheegeen inay hirgelintiisa ka go'an tahay. marka laga yimaado heshiiskan la xidhiidha Berbera, muddooyinkii u dambeeyay waxaa jiray khilaaf u dhexeeyay Djibouti iyo shirkadda DP World kaasoo ku saabsanaa mashruuci dekada Dooraale oo ay dowladda Djibouti la wareegtay. waxaa la weydiiyey gudoomiyaha DP World halka uu ku dambeeyay arrinkaasi. Djibouti waxay ku jirtaa maxkamad, waxaana maxkamadda ka socda doodo badan. waxaannu arrintaasi ka dhur sugaynaa nidaamka sharci, waxaannu qaadi doonaa tallaabo kasta oon ku ilaalinayno xuquuqda dadka saamileyda ah. joojina mayna ilaa aanu ka sugayno in DP World sharciyan ay hesho magdhow. iminka kama hadlayno inaan dib ugu noqonayno, sababtoo ah waxay samayn karayeen way sameeyeen, mana maalgelin doono dalkaasi. Djibouti xadka ayay ka gudubtay, waxaanay maanta taasi ka dhigtay Djibouti oo keliya maaha ee Afrika meel khatar ah, taasoo macnaheedu tahay in cid kasta oo doonto inay maalgashato ama dekada dhisto oo bangiyada deyn weydiista, waxay bangiyadu weydiin doonaan dulsaar aad u badan, sababtoo ah suurtagalnimada inay dowladdu la wareegto maanta ayay dhab noqotay. weligay tan oo kale maan arag. geesta kale heshiiskaasi waxaa dareeno kala duwan ka soo celiyey dalal kuwa mandaqada ah. dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ahayd oo ku tilmaantay sharci darro. madaxweyne Biixi isna la weydiiyey su-aashaasi ayaa ku jawaabay. cid barashan ama culays lagu cadaadi karta dalka iyaga waxaanu ka qaban siyaasiyan, ganacsi ahaan, diblomaati kale ma jirto. u malayn maayo in ka jirto dowlad ay naga dhaxayso colaad aan isku cusub dalka gudihiisa. haddaad daaran tahay Soomaaliya oo dhowr jeer soo faragelisay waa baraf, waa hadal miyaha loo dhigay, saameyn laguma laha hadalkooda. afku maa la iska xumeeyey, dee soo socdana waxay geliyeen colaad iyo cadaawad la isugu qaado. markaa wuu difaacan yahay oo dalka nabadgelyadku xidhay, cidna looga baqmaayo dhinacayaga. DP World waa ceed saas looga soo baxdaa, Ethiopia looga soo baxdaa. markaa qof waliba mas-uuliyadda dalkiisa ayuu ka mas-uuliyay, day dhaqaale tahay, day sharciga weeshiya tahay, day iskuulatiga meesha tahay. markaa uu boqolkiiba boqol aan sugnaa. heshiiskan ayaa qayb ka noqday arrimaha hirdanka ganacsiga ee ka taagan Afrika, gaar ahaan dalalka bariga Afrika. waxaanu sheegay gudoomiyaha DP World inay diyaariyeen goobo ku yaala magaalooyinka Diridhabe ee Ethiopia iyo Kigali ee Rwanda oo agabka dekada Berbera laga soo dejiyay gaarsiin doona dalal taxan ilaa bartamaha Afrika. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.